بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما بعد، waxaan salaamayaa xildhibaanada labada aqal, wasiirada, agaasimayaasha, aqoon-yahanka iyo dhammaan xoghayaasha. waxaan si gaar u salaamaa Professor Qaluucu iyo Professor Xasan iyo saaxiibkay Faysal. aad u salaama dhammaantiin waa salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waxaan halkan u joognaa waxa waaye maanta bandhigga buugga Ifiye oo runtii ka sheekeynayo aqoon-yahanadii hore ee islaamka kana soo shaqeeyay ilbaxnimadii jirtay muddo aad u fara badan oo ilaa hadda taan dadka qaar ay maalayaan faa'iidadii ay ka heleen, laakiin dadkii muslimiinta ahaa aysan ka faa'iideysanin oo looga dhigay macnaha in ay yihiin dad dib u dhac ahaa oo wixii midda inta laga reebtay wixii kale ee dib u dhac ahaa loo soo hormariyay oo naloo diiday xataa in aan macnaha markaan dhaana xidigaha iyo waxbaan ka sheekeynayna dhaano in la dhahay faalalow iyo waxbaa qabanaysiin iska dhaaf. oo Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay wa calaamaat wa bin najmi hum yahtaduun kullun fi falakin yasbahun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim. macnaha waxaan xisaabay ku socdaan li ta'lamu 'adad as-sinin wal hisab wa kull shay'in fassalnahu tafsila. marka waxaas intay naga qaateen ayaga saan iyo kooska intay qaateen ee anaga waxay noo soo direen bas wax yar oo xisaab ah, laakiin wixii ay wax ku sameynayeen dhan way naga reebteen. markaas ay waxay dhaheen waxaa tiin dad dib u dhacay maanta caalamul islaami ma samaysan karaan, xataa baabuur ma samaysan karaan iyo guluus. intaasna waxa dhigay waxa waaye taariikhdoodana ma oga. markaas qofka aan taariikhdiisa ogeyn waxaa la yidhaahdaa tagtadiisana macnaha timaadadiisana ma yaqaano, joogtadiisana kama shaqayn karo. marka sidaas daraadeed buuggan marka wuxuu dib noo xasuusinaa dadkii aqoon-yahanka ahaa ee dunidan soo maray ee muslimiinta ahaa ee aqoonta badan lahaa ee macnaha xilli Yurub iyo ay macnaha saabuun la'aan ahaayeen oo ay shiirayeen dadkii wax baray oo sida loo qabaysto baray oo sida la isku carfiyo baray sida gaadiidka loo sameeyo baray sida badaha loo maro baray in marka ay ku soo koobay oo ku soo aruuriyay iyo dadkii xisaabaadka baray dadkii aqoonta dhanka dhakhtarnimada ibnu Nafiis iyo dadkii la midka ahaa dadka siyaasadda iyo cilmiga ijtimaac sociology ay ka barteen oo ibnu Khalduun oo kamid yahay. marka aqoontii nagala dhoofiyay inuu dib noogu soo celiyo oo nagu baraarujiyo oo dhaho war aqoontii dadka adinka la heedeen waatana dadkii oo waayeeladeed kugu ahay oo awooyaashin ahay bal wax ka qaato wax ka barta. horta aadan ugu mahadcelinaa abshir, waana buug nuuciisa kale macnaha uu yar yahay oo ku qoran afka Soomaaliga. ayaamahan dambe marka waxaan dareemaynaa maadaama aan nahay mid qoraal Soomaaliyeed waxaan dareemaynaa dadka inay xoogaa dib milicsi ay sameynayaan oo ay ka sheekeynayaan macnaha wixii dadka ay lahaan jireen. waxaa la qoray buug culimada Soomaaliyeed la qoray, haddana waxa waa buuggii caalamul islaami iyo culimadiisa la qoray. marka waan rajaynaynaa intaas in ka badan in la sii qoro oo waliba waxa ay qoreen oo si faahfaahsan ah nin walba intuu mid isdul istaajiyo oo wax nooga soo bixiyo istinbaad fiican oo ka sameeyo oo hadhow aan macnaha wax ku dhisano dawladnimada iyo waxa dhan aan u baahannahay waxay dhex yaalaan waxa waaye aqoonteena dhex yaalaan, laakiin anaga ma ka raadsano. hadda waxa ugu weyn waxa la lahaa Reagan markuu sameeyay takrifadu sameeyay wuxuu ka qaatay mas'alada uu ka qaatay waxa waa Amr ibn Aas oo ka qaatay. Amr ibn Aas waxa la yiri